skillka waxaa ka muhiimsan attitude-ka haddaadan markii hal saac bar lagu ballamiyo aa 2 saac imaato micnaheedu shirkad kugu dhiiranaysa ma jirto haddaa jaamacad x ka soo baxday haddii lagu daro jaamacad y waa inaad la shaqeyn karto adaptability aa lagaa rabaa mashruuca bile dabcan intiina ka war hayso waxaan soo bilownay 2023 ujeedada ugu weyn oo aan ka lahayna waxay ahayd inuu noqdo buundo isku xiraysa kalaaska markaas soo qalin jabinaya ee culumta tiknoolajiyadda iyo suuqa shaqada sida aad ka war haysaan ICT-da ama tiknoolajiyadda ardayda ugu badan ee Soomaaliyeed jaamacadaha ka soo qalin jabiya sanad kasta tabaaragna waxa ay isku aragtaa inay tahay shirkadda koowaad ee tiknoolajiyadda waddanka intaasoo arday marka ma siin karno ama suuq uma hayno sidoo kalena keligan internship ma siin karno marka initiative waxaa imaaday sidee ardaydii soo dadaashay jaamacadihiina ay ku soo dadaaleen tabaarag wax uun ugu contribute gareey kartaa marka waxaan qaadanay aragti anagoo kaashanayna jaamacadaha mashruuca Bile Initiatives si loo diyaariyo ardaydaas suuqa hintis laga siiyo inaan qabano sanadlana aan ka dhigno dabcan waxaa ka faa'iideystay in ka badan 300 oo arday sanadkan dabcan waa ardaydu waa ka badan tahay waxaa ka qayb galaya in ka badan 22 jaamacadood waxaan ku soo xulnay sida ay jaamacaduhu ku imaadeen qaabkii hore ka duwan oo technology wise portal la sameeyay jaamacaduhu waa soo apply gareeyeen sidoo kale jaamacaduhu waxay noo soo direen ardaydii markaas ay u arkayeen inay fursadan ka faa'iideystaan 22 kaas jaamacadood waxay ku qaadanayeen kuraasta dadka uga qayb galaya hadba sanadkan 2026 ardayda u qalin jabinaysa marka laga hadlayo tiknoolajiyadda sanadihii hore waxaa laga yaabaa inaan ku bilownay qaab oo equal siidadka ama kuraasta sanadkan laakiin waxaan ku base gareynay ardayda jaamacadaha uga qayb galayay ujeedada mashruuca dabcan waa inuu noqdo buundo sidoo kalena ardaydu ay helaan meel 2 weeks ilaa 3 weeks project life la sameeyo fursadana loo raadiyo oo haday noqoto suuqii labadii mashruuc ay hore aan qabanay tabaarag waxaa ka howlgashay oo hadda ka shaqeysa oo injineeradeeda ka tirsan in ka badan 50 qofood sidoo kale waxaa suuqa dabcan fursad u helay intii uusan nasiibku u yeelan inay tabaarag ka howlgalaan sanadkan theme-keena trackiska la kala dooranayo dabcan waa AI software development cloud computing iyo system analyst saddexda cloudka AI-da iyo systemka waa nagu cusub yihiin anagoo ku base gareynayna baahida suuqa oo by skill qofka oo isku horumarin karo dabcan mashruuca sida la sheegay waxaa iska kaashanaya Somaliland tabaarag ICT iyo Hormuud Salaam Foundation oo dabcan taabagelinta wixii facility oo ardaydu u baahan yihiin qayb ka qaadanaysa sidoo kale shirkadaha iyo institutionska halkan fadhiyana waxaan ka codsanaynaa in ardaydaas dabcan ku imaatay qaabkaas jaamacaduhu ay u soo xusheen in suuq loo raadiyo ay ka shaqeeyaan sababtoo waxay mudan yihiin in macnaha ay ka shaqeeyaan kuna shaqeeyaan tiknoolajiyadda sanadkan waxyaabaha cajiibka waxaa kamid percentage-ka gabdhuhu inuu aad u badan yahay jaamacaduhuna waa ku mahadsan yihiin jaamacadaha qaar 60% ka haayeen jaamacadaha qaar 50% ka haayeen on average-na 43% gabdho waaye marka halkaasna waxaa ka muuqata in gabdhuhu tiknoolajiyadda ay dabcan aad ugu soo badanayaan fahamkoodiina oo sidii hore ka fiican yahay tabaarag ICT percentage badan
oo ku dhawaad 30% oo injineera oo gabdha ah ayaa ka shaqeeya ardayda hal fariin ayaan rabaa inaan u gudbiyo oo ah maanta sabdiga hadduu ilaahay yiraahdo waxaa bilaabanaya trackiska waxyaabaha la qiimeyn doono waxaa ka mid ah oo shirkaduhu dadka ay ku qaataan waxyaabaha adiga laga yaabo inaysa kuu muuqan oo ay ka mid tahay attendance-ga team waaga waxyaabaha aan dhahno soft skillska oo yaryarka laakiin adiga laga yaabo inay micno kuu sameynaynin institutionska micno u sameeyaan institutionska skillka waxaa ka muhiimsan attitude-ka haddaadan markii hal saac bar lagu balamiyo 2 saac imaato micnaheedu shirkad kugu dhiiranaysa ma jirto inay ku qaadato sababtoo ah waqtiga ma ilaali kartid waxaa ka mid ah team waaga haddaa jaamacad X ka soo baxday haddii lagu daro jaamacad Y waa inaad la shaqeyn karto adaptability laga rabaa oo ay tahay inaad la qabsan karto qoladii lagu daro aadan dhihin hebela isfahamsanahay ma heblayaan isku xaafadnahay because wax ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay mashruuca waxa waaye networking inaad dad badan cusub ka barato wixii aad ka soo baratay jaamacadaada dhanka kale jaamacadda kale maxaa laga soo bartay dhalinyarada in la shaqeynayso dabcan mentorskana sidoo kale ay u arkaan la iska wada dhex arko groupiska saasa loo sameyn doonaa laakiin waxyaabaha aan aragno waxaa kamid ah qofkii iyadoo track uu ku jiro inuu haddana mar kale haddana uu yiraahdo aniga waxaan u baahanahay hebel iyo heblayan lagu daro ardayda marka waxaan rabnaa inay ka faa'iideystaan meelaha la fiirinayo markii suuqa la imaado waa soft skillska not or technical skillska qof kasto halkaan fadhiya qof shaqaalaysiin kara waxaan rabnaa inuu yabo sameeyo markii la siiyo codka ardaydan dabcan dadka ay sugayaan wax u soo barteen wadankan waaye wadankan tiknoolajiyad ayaana lagu bedeli karaa sida tawaariga aaminsan tahay haddii ardaydan iyo kuwa kaloo kamida looga faa'iideysto qolo kasta waxa ay soo baratay waxaan isleenahay wax badan oo cilado ah oo hadda jira in ay fududaan doonto mar kale waxaan u mahad celinayaa ardayda jaamacadaha iyo qof kastoo halkan fadhiya ee soo ajiibay waxaan rajaynaynaa sanadkan in ka badan intii suuqa geli jirta ka badan ay gasho sidoo kalena cashirada meeshan ka baxaya oo ay ugu horeyso trendedka suuqa sida uu yahay oo cloudka iyo AI-da ayadana sidoo kale in wax badan laga fahmi doono aad iyo aad mahadsantihiin ku soo dhawaada xafladda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.